بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله خير من صام وقام وتهجد وصلى حتى تتورمت قدماه الشريفتان صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. walaalayaal soo dhowaada, waa walaalkiin ciise cali sheekh oo idiin soo gudbin doona haddii alla yiraahdo callamanii ramadaan wuxuu i baray, soonku wuxuu i baray haakadaa callamanii ramadaanu, waxaan ka faa'iidaystay ramadaan, sidaan iyo sidaan waxaan ka faa'iidaystay bisha ramadaan. waa dersi ku saabsan, marka insha allahu tacaala kusoo dhowaada, isgaarsiiya. waan soo kokoobayaa, ku dheeraan maayo oo ku fogaan maayo, sababtoo ah dadka aada iyo aad bay u garanayaan waxyaalaha ama macluumaadka ku saabsan bisha ramadaan, ajirkeeda iyo fadligeeda. khudbooyin fara badan baa laga soo jeediyey, kitaabo ayaa laga qoray, axaadiis fara badan baa kusoo arortay. culimmaduna juhdi badan bay saareen arinkaas, jazaahum allahu khayran. marka dadweynuhuna way ka faa'iidaan arinkaas. marka waa walaalkiin ciise cali sheekh oo mar kale idin leh ramadaan kariim, taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. ilaahay hanaga aqbalo camalka suuban, ilaahay sharta iyo shaydaanka ilaahay hanaga xijaabo. marka sii gudbiya oo istusa oo isgaarsiiya khayrka, noona soo duceeya insha allahu tacaala. annaga qurbaha ayaanu joognaa, culaysyo badan ayaa iska jira qurbaha iyo maaragtay wadamadan galbeedka. ramadaanku aada buu u dheeryahay, habeenku wuu gaaban yahay, marka dadku cibaado badan meesha laguma hayo. marka ilaahay inuu noo fududeeyo, noo soo duceeye. wabaarak allahu fiikum. alxamdu lilah, ilaahay baa mahad iskale subxaanah wa tacaala. aan ku mahadinaynaa, na siiyey nicmooyin fara badan, nicmat liimaan, nicmat lislaam, nicmat ramadaan wa kula shay. wax walba ilahay waana siiyey. nicmat sixa, nicmat lawlaad, nicmat risq wa kula shay. ilahay wax walba ilahay waana siiyey. nicmooyinka ilahay marka waxaa ka mid ah in ilaahay uu sameeyey jala wacalaa amaakin fadli badan, inuu sameeyey amaakin fadli badan iyo awqaat fadli badan. amaakinta waxaa kamid a makat lmukarama, madiina kamida, ma arkaysa masaajida kamida amaakinta, iyo meelaha cibaadada ah amaakinta ayay kamid yihiin. waxaa kaloo kamida waqtiyada fadliga badan, waxaa kamida ma arkaysaa shahru dilxija, layaali ramadaan, bisha ramadaan, waxyaalahaas. marka ilaahay muxuu ugu talagalay waxyaalahaas in dadku ay ka faa'iidaystaan, ilaahay ugu talagalay. marka halkan waxaan kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala, anoo soo koobaya, aada iyo aada usoo koobaya, oo aanan ku fogaanaynin haddii alla yiraahdo 15 wax ama 15 shay oo la dhihi karo waxaan uga faa'iiday ama uu ibaray soonku ramadaan, uu ibaray la dhihi karo. marka dadka wax aqriyana intaa ka badan ayay ku sheegaan. marka 15 keliya maahan, ka badan baa laga faa'iidaysanaya, laakiin anigu intaan 15kan ayaan kusoo koobaya. marka culimo kale ayaad ka faa'iidaysan doontiin oo intaa kasii badin karta insha allahu tacaala. marka ramadaanku muxuu i baray? marka su-aal baa taagan, su-aal ikhwaanayaalow, walaalayaalow, ayuha saa'imuun, su-aal baa taagan, su-aal ayaa taagan. oo ramadaanku ma iskuul baa, ma macalin baa? marka haa iyo maya. nacam, ramadaanku waa iskuul, madrasa waaye. wa ayumaa madrasa madrasatan kaamila, waa iskuul dhamaystiran weeye ramadaanku. waa kaa. macalin miyuu yahay? haa, waa macalin, wax buu ku barayaa. waa macalin, ramadaanku waa macalin, wax buuna barayaa. marka sida mustaqbalka sidaan uga faa'iidaysano, noloshayna inta ka dhiman, haddii ilaahayna gaarsiiyo subxaana wa tacaala, si aan uga faa'iidno ayaanu waxaanu dhihi karnaa callamanii ramadaan
أنه شهر التغيير بشي اسبدل كوي اسبدل محل يرى اسبدل مركا تغيير محل يرى هذا اسبدل أفكار ضدك كم مغلان لكن معنى وين أيو ليه تغييركم معنى وين أيو ليه معناها سي وحواية كبا سوقات مركا أنا هذا قلبان كجرا مركا ألابتك كلا بدلو أو ألابت هل كانت على حقا عنديكو markay saatan xagga talna inta aan keeno waa isbedel waaye sidoo kale to gabadha wanaagsan oo xaaska wanaagsan markii ay qabto oday muxuu ahaa ama nin yara xoga qarashku ku yar yahay oo gurigii loo baahdo inuu isbedel lagu sameeyo lacagtii lama awoodo oo lacagtii ma hayo marka gabadhu maxay sameynaysaa sariirtii ay dhanka kale u bedelaysaa meeshii ay guriga ka tiilamooye waxay ka bedelaysaa meeshii kale ayay usoo bedelaysaa marka sariirtii ayaa guriga dhexdiisa lagu bedelayaa marka daaqada ayay sariirtu saareed daaqada kale ayay geynaysaa marka gurigii isbedel ayuu sameynayaa markii uu odagii soo galo ama ninkii soo galo wuxuu arkayaa gurigii isbedel uu ka dhaca marka isbedel waaye waa isbedel waa waxa ugu sahlan waaye marka shahru tagyiir la yiraahdo waa bishii isbedelka ayaa la yiraahdaa marka waxaa la yiraahdaa isbedelku marka wuxuu ka imaan karaa min as-sayyi ila al-hasan xumaan oo wanaag loo bedelo iyo wanaagi oo la sii bedelo mid ka wanaagsan loo sii bedelo mid ka sii wanaagsan loo bedelo marka waxay sheegtaa la yiri ama waxa culimada ku xeel dheer xagga tagyiirka maxna tacliimtu waa tagyiir way dugsiga hoose dhexe sare jaamacad kitaabad aqarsanaysa jahligaad kaga baxaysa isbedel maanta midda kale to imtixaanaad ay ardada Soomaaliyeed qaar kamid ay galayaan saan maleynayo ilaahay ha u fududeeyo inta imtixaan galaysa imtixaanaad gobolka Puntland oo kale iyo gobolada Soomaaliya ma ogi kulay aanu si fiican ulama socon arinta marka ardada markay imtixaanka ay galayaan imtixaanku waa isbedel ayuu nafta ku dhalinaya markaysa waagi hore ardada waa loo ducay jiray masaajidada ay loogu ducay jiray markaysa in ilaahay ku sugo markaysa oo ilaahay faham fiican ilaahay uu siiyo subhanahu wa ta'ala marka arintaas ayaa markaysa Soomaalidu dad badan ma yaqaanaan masaajidada ayaa looga duceeyaa ardada iyo maartay meelaha la isugu imaanayo oo gaar ahaan wadanka Masar markaad aragtid marka imtixaan uu jiro wadanka Masar waxa weeye kulli masaajida ayaa looga duceeyaa waxa weeye waalidku carruurtooda ay aad iyo aad macnaha ayay wax u la qabtaan waqtiyada imtixaanku uu soo dhow yahay oo waxaad arkaysaa waalid muxuu ahaa waalid ardadii xataa iskuulka u sii dhaweynaya oo habeenkii la soo jeedaya inta ardaygu habeenka uu soo jeedo waalidiinta oo masaarida way la soo jeedaan muxuu ahaa carruurtooda way la soo jeedaan marka inta imtixaan galaysana ilaahay ha u sahlo ku guuleysta Allah ka dhigo waayahay marka cilmi baaristu ama dadka culimada cilmi baarista sameysay waxay yiraahdaan bin aadanku haduu hal dabeecad haduu saddex asbuuc hal dabeecad hadii uu sameeyo caado ayay noqonaysaa saddex asbuuc ayaad waxaad sameynaysay barnaamij baa sameynaysay ama dad hadda waxaa jira muxuu ahaa cuntada iska yareynaya dad waxaa jira isboorti ciyaaro ayaa jira dad waxaa jira koorso qaata ayaa jira saddex asbuuc wixii adiga aad sameysid waxaa leeyahay caadi ku noqonaya caado waadba ka dhaqan yeelataba subax walba waxaad ugu tala gashay inaad orod aad sameysid ilaa 1 kilomitir 2 kilomitir marka saddex asbuuc haddii aad sameysid jirkaadii wuu la qabsanayaa saasaa loola jeedaa haddii asbuuc macnaha haddii asbuuc kale uu ku daro haddii asbuuc kale qofka uu ku darana waxayba noqonayaan sajiya dabeecad oo aan qofka ka fogeyn bay ma noqonaysaa marka allamani ramadaan annahu shahru tagyiir marka waxaa la yiraahdaa al-insaanu qaabilun lit-tagyiir insaanku wuxuu samayn karaa ama aqbali karaa isbedel ayuu samayn karaa tagyiir ayuu samayn karaa tagyiirka dhowr meelood inaad iiga dhageysateen waan u maleynayaa oo aan ka hadlayay macnaha sida oo gorgorka uu sameeyo tagyiirka muxaadaradan mooy muxaadaro kale ayaan kusoo qaatay sida tagyiirka uu sameeyo
laakiin bisha ramadaan waxa waaye isbedel ka dhaqankaada dhan baa isbedelaya, dhaqankaadii dhan, caadadii dhan baa isbedelaysa, dhaqankaadi baa isbedelaya. waad sooman tahay, wax ma cunaysid, wax ma cabaysid, qur-aan baad akrinaysaa, suxuur baad usoo kacaysaa, waad afuraysaa, waxyaalo badan baad iska ilaalinaysaa. marka kow waaye, tan koowaad waaye. tan labaad waxa waaye callamanii ramadaan annahu طariiqun lilmagfira, waa wado loo maro dembi dhaaf ilaahay inuu dembigaada inuu dhaafo, ama kulligeenba ilahay dembigeen inuu dhaafo, waa wadadii aan u maraynay. ramadaanku waxa waaye marka dariiqun lilmagfira wey. marka maadaama dariiqun lilmagfira uu yahay, halka kan waxaa laga yaabaa inuu qofku marka iska seexdo marka. laakiin waxaa la yidhi qofkii seexday siciis dibi dhal ayaa la yidhi soo ma. marka maqfiradu waxay u baahan tahay juhdi, dadaal. waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin ayaa ilah yidhi subxaana wa tacaala. marka taqyiirku iyo juhdiga la samaynayo iyo maqfirada markaan isku darno saddexdaasi ku imaan maayaan tamani waxa la yihahdo, waan iska jeclahay, waan iska jeclaaday, waan iska jiifanaya. ya tamani ma ku imaanayso iyo amaani yididiilo aan camal lahayn, aan shaqo lahayn, wax uun cilmi un qalbiga un isaga jiro oo maskaxda isaga jiro oo aan macnaha markii waaqica la gaaro aan la samaynaynin, oo masaajidkii aan kugu xiraynin, waqti dheer saacadahaada aadan sii karin, ma arkaysaa. marka ninka wuxuu yidhi tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi. ya tarju najaata, badbaado ayaad doonaysaa, badbaado inaad adduunya aakhira aad badbaadid, mana aadan qaadin wadadii loo mari lahaa ma aad qaadin. walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi, dooni kuma socoto meel ciid ah ama dhul yaabis ah kuma socoto. ina safiinata laa tajri cala alyabasi. marka doon waxay u baahan tahay, biyo bay u baahan tahay. marka juhdi, dadaal, marka wax walba marka dadaalay u baahan yihiin. marka waxaa loo baahan, marka dadaal ayaa loo baahan yahay, dadaal loo baahan yahay. callamanii ramadaan wuxuu ibaray ana alacmaala lahaa dhawaahirun wa bawaatin, acmaashu inay leedahay muuqaal muuqda iyo mid aan muuqan inay leedahay. camalka nagala rabo, acmaasha oo laga doonayo qofka muslimka ah waxay leedahay muuqaal iyo qaab ayay leedahay, daahirka ah ay uga muuqato, iyo wax aan loo jeedin oo qarsoon. marka meeshaas maxaa laga fahmayaa? xadiidkii inay xadiid ahayd baan qiyaasayaa, ma arkaysaa, inuu yahay ramadaanku ama soonku inuu yahay sir inuu yahay min asraar illahi tacaala. oo xadiidkii ayaa laga qaadanaya, culamadu ay yihaahdeen asawmu lii wa ana ajzi bihi, soomka aniga ayaa iskale, anigaana ka abaalmarina. taas marka maxaa la yidhi? waa sir baa la yidhi. marka hadda qol baan ku jiraa, anigabaa idinla hadlaya, ma arkaysaa. qofku marka haddii usan ilaahay ka baqayn biyo cabi karaa, waan soomana ayuu le dadka hortooda inta tago waan soomana. marka wuxuu iska dhigayaa qof macnaha sooman buu iska dhigayaa. marka ilaahay miyuu khiyaanaya? dadkuu khiyaani karaa mooye ilahay ma khiyaani karo. marka soomku marka waxaa la yidhi waa sir min asraar. taas marka annaga ayaa dareena galbeedka jooga. dadkan cadaanka ah ama aan muslimka aan ahayn waxay leeyihiin maxaad la sooman tihiin, oo dadkii bay weydiinayaan maxaa cuntada isaga inaad 20 saaca soonaato maxaa kuu kalifaya? marka ma dareensana marka sir baa ku jirta halkaas. marka gaaladu marka ma fahamsana sirtaas, ma fahamsana, ma arkaysaa. mana taalacan karaan, mana ogaan karaan, ma arkaysaa, mana fahmi karaan. laakiin markii loo sharxo, waxaanu ugu sharaxnay in anagu ilaahay aan ka baqayno subxaana wa tacaala, maalinta aakhirana dadku ay kala baxayaan fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir. marka ilaahay baad ka baqaysiin soo maha, waa marka alkhawf min allahi, ilaahay aad ka baqaysiin soo maha, saasaad u soomantihiin soo maha. waa ka haddaba waxay leeyihiin anagu ilaahay ma aaminsanin, ilaaha waxa la yihahdo ma aaminsanin. markays wax ilaah la yihahdo iyo maa bacda almowti jannatun walaa naar,
geerida in janno ka dambaysa naari ka dambaysa anaga ma aaminsanin. marka anaga haddaan dhimano wahada huwa alfanaa, waaba halkaa baanu ku sinana, anaga halkaa ma dhaafayno ayay ku leeyihin. marka ma fahamsana. marka laakiin soonka iyo cibaadada aan la imaanayno waxaan ilaahay uga rajaynaynaa maa bacda mowtina, maa bacda almowt nalqa allaha subxaanahu watacaala wayuxaasibuna can acmaalina sawaaء kaanat kathiira aw qaliila sagiiratan aw kabiira. ma arkaysaa, ha xumaato ha samaato, waa lagu xisaabinaya. waqifuuhum inahum mas-uuluun ayaa horta noo taala. ma arkaysaa, latus'alunna yowmaidin can inacyamana hortaala anaga. waayahay tan afaraad marka maxay tahay? tan afaraad maxay tahay? callamanii ramadaan xaqiiqat aljuuc, gaajada xaqiiqadeedii ayuu ibaraba. ramadaanku wuxuu ibarayaa gaajadii ayuu ibarayaa. gaajadu waa subaxdii markaad soo kacdid xataa waad gaajoontaa. adoo xala suxuurtay subaxdii markaad soo kacdid ma arkaysaa waad gaajoontaa, wax waad cuni kartaa, ham waad sii kartaa soo ma. laakiin 20 saac baa ka hortaala, 20 saac 12 saac baa ka hortaala, 13 saac oo soon baa ka hor yaala. ma arkaysaa marka xaqiiqat aljuuc. marka xaqiiqat aljuuc marka ani haddaan dareemay maxaa laga rabaa markaas? ixsaasul jaa'iciin ayaa laga rabaa. dadka gaajoon inaan dareemo marka taas waaye. dadka gaajoon oo aniga aan ahayn, waxaa laga yaabaa aniga in guriga raashin yaalo oo aan afur heli karo oo aan cunto heli karo oo xoogaa jawaabku ii buuxaan. marka qofka muslimka ah waxa waaye wuxuu barayaa ramadaanku xaqiiqat aljuuc iyo ixsaasul jaa'iciin. marka taas ayaa waxay keenaysaa la yiri inuu qofku uu wax quudiyo oo ma arkaysaa falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba fakku raqaba aw itcaamun fi yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba uma kaana min aladiina aamanuu watawaasaw bisabr watawaasaw bilmarxama uu noqdo. iyo wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiiran inamaa nuطcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum. marka dadka waad arkaysaa ramadaanka markii la gaaro dad badan baa la quudinaya, dad badan baa la afursiinaya, dad badan baa laga ajri laga helayaa quudintooda. ma arkaysaa ayaguna way ku noolaanayaan. ma arkaysaa qofkii sameeyana ilaahay buu ugu dhowaanaya subxaana watacaala. maalinta aakhira iyo cadaabkii uga badbaadaya. miisaankiisa ayaa xasanaadkii loo saaraya. marka shay wanaagsan wey. marka wuxuu kaga badbaadayaa in ma arkaysaa inuu noqdo dadka ahlu naarka oo kaleeto ku qaylinaya maalinta qiyaamaha marka naartii la geliyo. qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin. kuwa ayuu uga badbaadaya. walam nakun nuطcimu lmiskiin, masaakiinta ma aanan quudi jirin. masaakiintu waa gaajaysan yihiin. ma arkaysaa dhar ma haystaan, ma arkaysaa biyo ma haystaan, cabitaan ma haystaan, cunto ma haystaan, gaajo cunto la-aan baa jirta. ma arkaysaa marka deriskaadii ayaad wax siinaysaa. qofka muslimka oo kaleeto oo baahan baad wax siinaysaa. marka ramadaanku marka muxuuna barayaa xaqiiqat aljuuc, gaajo inay jiri karto, in dhibaato jirto. ma arkaysaa ayuuna baraya. sidoo kaleeto ramadaanku muxuuna barayaa soomku muxuuna barayaa wuxuuna barayaa go-aan adag inaan yeelano oo ku saabsan xagga cibaadada. inahu yuqawi aliraada walcazimata cala rushdi. sooma ina cazima aan yeelno go-aan. ululcazmi min arusuli fasbir kamaa sabra ululcazmi min arusuli. ululcazmi fasbir, sabr, shahru sabr waa bishii la sabrayay, waa bishii lagu sabrayay cibaadada lagu sabrayay. fasbir kamaa sabra ululcazmi. ululcazmi maxaa loogu bixiyey marka? ululcazmi min arusuli, nabiyaashii ululcazmiga ahaayeen. ma arkaysaa nabi ciise, nabi muuse, ma arkaysaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ma arkaysaa maxaa loogu bixiyey? maxaa loogu bixiyey marka nabiyaashaas? maxaa ululcazmi marka maxaa loogu bixiyey? go-aan bay lahaayeen, dacwadii bay dadka gaarsiinayeen. ma arkaysaa way u dhabar adeegeen. dhibaatooyinkii ummadahoodii ay kala kulmeen ayay u adkaysteen. marka sidaasoo kaleeto iraadada iyo casiimada ayuu awood kuu siinaya ramadaanku inaad maa bacda ramadaan aad soonka xataa wajidkii sunnada ahaa oo muxuu ahaa bacda ramadaan 6 min shawaal oo kaleeto inaad ka qayb qaadatid. siyaamu lithnain walkhamiis
haddii ilaahay ku waafajiyo subxaana wa tacaala iyo ayaamul biidki soomku marka waa junna waay, waa gaashaan waay, waa gaashaan waay, waa gaashaan xumaan oo dhan baad isaga gaashaamanaysaa. marka qofka soonka tijaabiye ayaa garanaya layidhi. markaysa sidoo kaleeto wuxuu go-aan kugu siinayaa oo inaad mar walba aad tooba keentid, inaad macnaha toobadii adi aad keentay oo toobadii aad macnaha tooba keenka waxaa waaye dembigii aad ka laabatay inaadan ku laaban, dembigii aad ka tooba keentay inaadan ku laaban way, inaadan ku laaban. marka go-aan waay. marka ramadaanka wuxuu ku barayaa caziimo uu ku barayaa caziima, inaad noqoto qof caziimo laho, waxbarashadii go-aan u laho, alla ka cabsigii go-aan u laho, salaadii cibaadadii go-aan u leh. dadka qaarna iska labac ma arkaysaa ramadaan ha ahaato maysan ahaan, marka tacbaan waay, tacbaan calaa xaalu ayaa la yihahdaa qofkaas. marka waxaa kaloo kamid a ramadaanka, waxaa kaloo kamid a ma arkaysaa inuu nabaro attaqwa, alla ka cabsi ayuu nabaraya. qur-aanka imisa ayaa ku jirta, kitaabo badan baa laga alifay taqwadii. culimada ayaa mar walba muxaadaraad iyo kusoo qaata muxuu ahaa iyo barnaamijyo kusoo qaata, aayad badan baday ka hadlaan soo maha. marka taqwada markii lasoo koobo maxay tahay? maxay tahay taqwada markii lasoo koobo? waxaa waaye in ilaahay uusan kaa weynin meeshii uu kaa rabay, meeshii uu kaa nahayena inuusan kugu arag weye. taqwada waa taas marka xaqiiqatu taqwa, lacalakum tattaquuna. marka taqwa alla ka baq, ilaahay aad ka baqaysaa subxaana wa tacaala. markaysaa isbedelka marka la sheegayo waxaa waaye taqwo ayaad haysanaysaa mar walba, alla ka cabsi, alkhawf min allahi aljaliil, markaysaa walcamalu bilkitaab, markaysaa walisticdaadu liyowmi araxiil, markaysaa walrida, markaysaa bilqaliil, iyo markaysaa taqwadii iyo waxyaalo badan baad ka faa'iidaysaa oo taqwadaas ku saabsan, lacalakum tattaquuna inaad taqwada. marka taqwada meel bay soo gelaysaa, ganacsigaada ilahay inaad uga baqdid, reerkaada ilahay inaad uga baqdid, caruurta ilahay inaad uga baqdid, markaysaa oo adiga aad noqotoba min almuttaqiin, aad noqoto min almuttaqiin. allahu yuxibu almuttaqiin, markaysaa ilaahay wuu u gargaaraa dadka muttaqiinta, wuuna jecel yahay. qur-aanka meelo badan bay kusoo aroortay soo maa. tan kaleeto oo toddobaad waxaa waaye ramadaanku wuxuu ibaray ama na baraya kulligeynba ya ana allaha yuriidu mina alyusra walaa yuriidu mina alcusra. allahu yuriidu bina alyusra walaa yuriidu calayna alcusra. ilaahay wuxuu nala doonayaa fudayd, wax fudud aad iyo aad macnaha aan dhib lahayn oo mushkilad lahayn ayaa ilaahay nala doonaya. yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra. yusr ina maca alcusri yusran, markaysa ina maca alcusri yusran. marka adduunyada hadaad dhibaato hadaad kala kulantay, markaysa ilaahay diintiisu marka waa fudayd ula jeedadu, macnaha culays ma aha. awaamirta ilaahay uu nasaaray, markaysa awaamirta ilaahay nasaaray oo waajibaadka, faraaisha iyo sunanta aan ilaahay ula imaanayno subxaana wa tacaala, oo ilaahay aan la qaabilayno subxaana wa tacaala. waa fudayd. qofka marka muslimka fudayd buu cibaadadii u noqonaysaa, alla ka cabsigii kulli waxay u noqonaysaa fudayd bay u noqonaysaa, fudayd ayuu dareemaya. yuriidu allaahu, ma ilahay muxuu doonayaa an yukhafifa cankum, ilahay inuu idinka fududeeyo. ya soo qur-aanka soo maha, aayadda qur-aanka soo maha, laa yukalifu llahu nafsan illa wuscaha. aayadda dheereed oo suurat albaqara dhamaadkeeda aayadda soo maha, aamana rasuul dhamaadkeeda, markaysaa laa yukalifu llahu nafsan illa wuscaha, laha ma kasabat wa calayha ma iktasabat, rabbana laa tuaakhidna in nasiina waakhda'na, rabbana walaa. nisyaanka iyo khada'i inta waa la iska cafiyey, markaysaa. marka tashriica ilaahay subxaana wa tacaala, marka wax walba oo macnaha nas kasta ee dadka ula muuqda inuu dadka dhibaato u leeyahay, ma arkaysaa, waa ayaga ayaan fahmin. marka wax walba oo dadku ay u arkaan inay diinta islaamka dhexdeeda ay dhibaato ay ku tahay, dadku ayagaan fahmin dadku ayagaan fahmin. marka wax walba oo dadku culays ku ah diinta kamid maaha, wax kastoo dadka culays ku ah diinta kamid maaha, culays maaha. marka sidaas darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bisha ramadaan iyo wuxuu u baneeyey dadka ahlul acdaarka ah inay afuraan, sooma. ahlu acdaarka inay afuraan ayaa ilaahay u baneeyey. dadka musaafiriinta ah, dadka jiran, dadka xanuunsanaya, dadka gaboobay, dadka da-da ah, markaysaa
xanuunkaasi marka wuxuu rabaa hataa ramadaanka marka qofku uu dareemayo muxuu ah inuusan aqbali karin oo dhibaato uu ku yahay ama qofka uu suuxayo oo miir daboolmayo uu iska afuraya oo miir daboolmayo uusan qaadi karin ramadaanka soonka uusan qaadi karin macnaa wuu miir daboolmaya ama qof baa wuxuu yiraahdaa waan matag iyo miir dabool ayuu la imaanaya markaysa ramadaankii marka wuxuu cala alhalaak ayuu qofka marka nafta amay ka baxdaa uu isleeyahay markaysa oo qofka meeshaas mar hadduu soo gaaro qofku wuu iska afuraya biyaha iska cabaa leeyahay markaysa fa'iddatu min ayaamin ukhra maalmo kale iska soo qaday maalmo kale soo qaday waa sidaas weey marka dadka ahlu aadaarka ilaahay waa u fududeeyay dadka musaafiriinta dadka xanuunsanaya dadka murdicaadka waxaasoo culimada idin noo sheegeen marka kitaabadan way ku qorayeen xadiithana way noo cadeysay waxa kale oo kamid ah ramadaanka waxyaalaha uu baraya waxa kamid ah callamani ramadaanku marka waxa kale uu baraya qiimatul waqtiga qiimihiisa qiimada waqtiga uu leeyahay ramadaanka aan ka faa'iideysanayna marka qiimatul waqti marka maxaa waaye bishii ramadaan way soo bilaabatay waa la soo dhaweynayay tobankii hore way dhamaatay tobankii dhexa la joogaa tobankii dambe way dhiman yihiin sanadkan waa la joogaa sanad kaleeto kulli wax dhan way dhamaanayaan فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون marka maadaama waqtigii uu nagala doonayo inaan macnaha aan dhikriga ilaahay ku camirno oo dad ahlu khayr aan naqano oo ma arkaysa oo qiimada waqtigu marka uu leeyahay in ka faa'iideysanayna marka iyo waqtigiisa u kooban yahay iyo waqtigiisa sida uu yar yahay annahu yamurru kal barq hilaaco kaleeto ama arkaysa laxda ilbirqsi oo kaleeto bishii kugu dhaafaysa marka dadka badankiisa culays bay marka u arkayaan macna 30 maalmood miyaan soomi karaa 29 miyaan soomi karaa markaysa marka culayskii qofka uu dareemayay waaba kanaaba maba jiraba in yar kadib marka qofka waxa laga doonayaa maadaama saas uu yahay waqtiga marka in la abuurto inaad roobku markuu da'ayo ayaa beeraha la abuurtaa markaysa marka wabigu soo maaxdo ayaa beeraha lagu sii daayaa markaysa marka ninkii shaacirka wuxuu yiri غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا بري مالت قيامها ايا نف ولبا لسينيا وحي كسبت وحي شقيستي لسينيا قفكي وح ابورتنا وحي ابورتي ايو شفنيا ايو غورنيا قف تمر ابورتي تمر بو غورنيا قفكي لين بمبلما ابورتي ايدي اون ويه قفكي حمان ابورتنا حمانتي بو غورنيا marka lagama yaabo qof macnaha xumaan macnaha uu tala galay inuu bisha ramadaan sameeyo markaysa inuu yiraahdo aakhiro markaysa dan ilaahay afin subhanahu wa ta'ala asigana uusan ka tooba keenin inuu yiraahdo wanaag baan filanaya marka ilaahay noo barakeeyo umrigeena ilaahay noo barakeeyo waqtigan allah barakeeyo marka qiimatu zaman cinda ulama kitaabkaas bal hal akhriyo zamanka marka wuxuu leeyahay qiimo dheer ayuu leeyahay ama qiimo weyn ayuu leeyahay marka qiimatul waqti in qiimo loo yeelo oo kaga faa'iideysatid maalmihii habeenadii saacadkii waxa dhan way baxayaan marka ilaahana waafajiyo subhanahu wa ta'ala halkan marka waxaan rabaa dumarka inaan uga diro muxuu ahaa dumarka gabdhaha runtii ramadaanka waxa loo arkaa inay yihiin kuwa waxyaalo kale ku mashquulsan maadaama waqti uu nahayo waxa weeye waxay ku mashquulsan yihiin raashin karin afur karin muxuu ahaa diyaar garayn macnaha noocyo badan oo xalawaad iyo muxuu ahaa buuskuud iyo waxyaalo macmacaan iyo cuntooyin fara badan marka gabdho badan ayaa waxa la yiri waxay kaga mashquuleen inay taraawiixdii dukadaan inay salaatu leyl u kacaan macnaha marka waa khatar way arintaas waa arin khatar ah marka inaan raashin lagu mashquulin bisha ramadaan inaan raashin lagu mashquulin raashinka la kariyo rag dumarba wax way cunayaan laakiin ragiba ha ka shaqeeyaan guriyihii oo raashinka ayagu waxa ka kariyaan oo wiilashii dhalinyaradii waalidkood ha saacidaano ma arkaysaa soo ma wanaagsan arintaas in la saacido bas dumarka baa loo deenayaa dumarka masaajid ma aadayaan ma arkaysaa guriga way ku mashquulsan yihiin waliba cibaadada waxa fiican ma aragtay dadka salafu saalix ay ahaayeen ma aragtay kuwa ku tartama cibaadada rag iyo dumarba ku tartami jireen haddii guriga lagu dukan karana waa okay oo bisha ramadaan guriga lagu dukan karo
oo qofka masaajid uusan aadi karin, gaar ahaan wadankii Soomaaliya meelaha degan ama gobolada degan ama xaafadaha degan oo dadku ay masaajidkii wada aadi karaan oo taraawiixda la wada dukan karo, inay rag iyo dumarba ka wada qayb qaataan way wanaagsan tahay. laakiin qurbaha marka la joogo waxaad arkaysaa waqtigu iska kooban, dumarka guryaha ayaa lagu reebayaa, marka masaajidka ma aadayaan, ma ka faa'iideysanayaan, ma arkaysaa. marka arrintaas waa khatar weeye, marka khatar weeye. waa in la xasuusto nabigu inuu yiri calayhi salaatu wasalaam rubba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira, badana haweeney ama naag dhar qabta adduunka dhar huwan, laakiin maalinta aakhiro ma arkaysaa qaawan. marka gurigaada haddaad ku mashquulsho ma arkaysaa soo lama dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu ina min azwaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illahi, soo lama dhihin. marka gurigii baad ku mashquulshay, waxbaad kaga mashquulshay, marka waa khatar waaye gurigii. marka ramadaankii iyo maxaa laga yaabaa salaatuleylkii iyo taraawiixdii iyo tahajudkii iyo muxuuha iyo leylatulqadrigiiba inay qofka ay raashin karin ay kaga dhaafaan, raashin karin iyo raashin diyaarin iyo suxuur karin inay arrintaas ay ku dhaafto. marka xadiidka kan oo rubba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira, xadiidkaasi waa xadiid saxiixa. umu salama ayaa nabiga ka warinaysa sala allahu alay wasalam oo xaaska nabiga ah sala allahu alay wasalam. waxay leedahay habeen habeenada kamid ayaa nabigu soo baraarugay asigoo argagaxsan marka oo dhahaya ma arkaysa subxaana allah maada unzila alleyla ma arkaysa min alkhazaa'in wamaada unzila min alfitan, ma arkaysa man yuuqidu sawaaxib alxujuraat yuriidu azwaajahu likay yusaliina ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira. nabigaa soo baraaruga calayhi salaatu wasalaam. marka umu salama ayuu la joogay, marka uu soo kacay asigoo dhahayo subxaana allah, ama riwaayadaha qaar laa ilaaha ila allah ay leeyihin ayuu yiri nabiga alay. marka qofku soo kaco laa ilaaha ila allah subxaana allah, qofku inuu soo yara argagaxsan ayuu soo kacay, ma arkaysa. marka wuxuu yiri caawa maxaa la soo dejiyey oo ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey, macnaha khasanado, macnaha khazaa'in oo khazaa'in iska furan, oo macnaha sida muslimiinta futuuxaadka loo furayo oo kaleeto, iyo barwaaqada heli doonaan iyo fitanta kusoo socota. marka fitnooyinka nabiga calayhi salatu wasalaam uu ka digay, fitnooyinkan hadda caalamul islaami ka socda oo ama isdilka ah, weerarada ah, qaraxyada ah, dagaalada ah, kuwa sokeeye iyo kuwa kaleba oo kuwa kale nagu soo qaadayaan, waxaasoo dhan waxaa waaye nabigu kasii hadlay calayhi salaatu wasalaam. nabigu ka hadlay. marka wuxuu yiri marka yaa kicinaya xaasaskii kale oo nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, oo guryihii kale xaasaskii lahaa, caaisha oo laho oo macnaha umu xabiibo laho, yaa kicinaya xaasaskii kale. nabigu wuxuu qabay calayhi salaatu wasalaam xaasas badan uu lahaa soo ma. marka yaa kicinaya yiri oo salaatuleyl usoo kicinaya. marka badana ayuu yiri haween adduunka dhar leh, ma arkaysa, laakiin aakhira qaawan. marka adduunka marka aad cunto haysatid oo dhar haysatid oo adiga aad tahay qof ilaahay u barwaaqeeyey, laakiin maalinta aakhirana aad khatar gelaysid, maxaad ka faa'iideysaa marka walaashay. marka gabdhaha muslimaadka ah waxaa wanaagsan inay ka qayb galaan bisha ramadaan, ay ka faa'iideystaan. qur-aankiibaa laga rabaa, dikrigaa laga rabaa, ma arkaysaa, salaatuleylkii baa laga rabaa. macnaha inaad tii aan gaarin marka oo aan wax badan aan ka gaarin, wax yar ka samayso, ka sunnayso 2 ragco 4 ragco waxyaala sidaas oo kaleeto ah, ma arkaysaa. marka waa sidoo kaleeto muxuu ahaa ramadaanka marka wuxuu ibarayaa as-sadaqa tujbiru an-naqs fi ramadaan. sadaqada aan la imaanayno, sadaqada oo zakatu ramadaan oo kaleeto ah, zakatul fidriga oo kaleeto ah, waxay ibaraysaa ayuu yiri, ma arkaysaa, ama aanu leenahay in ramadaanka ay noo kabayso, ay kab tahay, kab macnaha ramadaanka haddii uu kaa macnaha yara uu kaa dhutinayay way kuu kabaysaa, ma arkaysaa. soo nabigu ma dhigin calayhi salaatu wasalaam ducmatun lilmasaakiin wa duhratan lisaa'im, ducmatan lilmasaakiin weeye, ma arkaysaa. iyo sidoo kaleeto duhratan lisaa'im, qofka soomana inay daahir u noqoto, qofka kalena oo macnaha inay maarana
qofkii kale oo muslimka ah uu ka faa'iideysto marka sadaqada oo lala baxo ramadaanka cajiib bay leedahay sidoo kaleeto qofka awooda inuu bisha ramadaan uu soo cumraystana cumrada way wanaagsan tahay qofkii awooda inuu cumraystana marka cumratun fi ramadaan tacdilu xaja cumro oo ramadaan lala yimid macnaa xaj bay u dhigantaa marka ayadana sirkeeda waa khayr badan weeye marka sadaqadii bay kamid tahay lacagtii aad ku bixaysid waa sadaqadii bay kamid tahay fi miisaan alxasanaat miisaanka maalinta qiyaamaha yuusan ma arkaysaa kor iyo hoos buu u kacayaa soo ma tan tobanaad marka waxaa waaye ramadaanku wuxuu ibarayaa inaan adab yeesho adab inaan yeesho ramadaanku wuxuu ibarayaa inaan yeesho edab inaan yeesho edab ramadaanku waa edab waaye inaan qof adban inaan noqdo markaan bulshada aan ku dhex jiro ramadaanka ma arkaysaa soo axaadiistiisa baahan ma arkaysaa haddii qof uu ku caayo horta aduu inaad iska ilaaliso qofka horta marka asal ahaan inuu iska ilaaliyo dembiga inuu iska ilaaliyo inuu asal ahaanba qofka asugu iska ilaaliyo beentii iyo khiyaanadii iyo rishwadii iyo iska dabuureejintii iyo wax kasta oo qofka dhibaato ku keenaya soomkiisa ma arkaysaa ilaahay dan kamala ayuu soo xadiidkii mahayn inuu qofku dacaamkiisa sharaabkiisa uu ka tago man lam yadac qowla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabahu ilaahay dan kama laha inuu qofku iska daayo macnaha cuntadii iyo cabitaankii haddana ma arkaysaa waxyaalo kaleeto ilaahay uu ka xarimay uu la yimaado oo soonkii dhaawacaya oo dhibaato u gaarsiinaya markaasa marka adabta marka maxay ka imaanaysaa inaa anigu dadka aanan dulmin oonan khiyaanin oonan dhibaato aanan u geysan oonan caayin ayaa ramadaanku faraya oo bisha ramadaan aan ka faa'iideysanaya oo ibaray sidoo kale haddii la caayo in aan iraado macnaha inaan fal celin ma arkaysaa oo aan iraado inni saa'im inni imruun saa'im waan soomana inaan fal celin adigana ha igu bilaabin ana ku jawaab celin maayo ma arkaysaa marka labadaynuba kasbaaniin ayaan nahay labadaynuba ma ku khasaarayno kasbaaniin waan kasbanay ajir baan kasbanay adiga haddaad iska daysa dembigii iyo anigu haddii aanan kugu qaadin dembigii labadaba marka adab iyo aadaab iyo akhlaaq ayaanu ka faa'iideynaa akhlaaq soo lama dhin akhlaaq wanaagsan ma arkaysa inaan wax la dilin inaan wax la dhicin ma arkaysa marka qofku inni saa'imun marka waa aadaabti weeye marka sidoo kaleeto ramadaanku marka wuxuu ibarayaa dadku inay kala duwan yihiin hadda barnaamijka aan sheegayo casharka aan akrinayo dadka ahlu khayrkaaba ka faa'iidanaya dadka ahlu khayrka ayaa ka faa'iidaya laakiin dadka ahlu sharka waxba ka faa'iidi maayaan ahlu sharka waxba ka faa'iidi maayaan marka ramadaan baa bilowda soo maaha waxaad arkaysaa wadamada muslimiinta meelo fara badan oo dagaalla ka socdaan ma arkaysaa dagaallaa socda dhiig baa la daadinaya masaajid baa la qarxinaya ummad dhan baa la barakicinaya yeman baa dagaal ka jira libiya ka jira soo dad muslimiina soo maha muslimiin suuriya ka jira soo maha soo muslimiin maha maxaa masaajida loogu qarxinaya maxaa loo garaacaya dadka marka madaxda ah ama dadka la dhihi karo waa dadka siyaasiyiinta ah marnaba badankood ilaa man raxima rabbuka ma arkaysaa ilaahay qof u naxariista mooye iska ilaalin mayaan dembiga iska ilaalin mayaan marka wacdigan iyo waanadan la sheega waxaad moodaa dadka masaakiinta iyo dadka ducafada iyo dadka ahlu masjidka iyo dadka ahlu khayrka unba loo sii sheegaya mooye dadka madaxda ah waxaas waxba kama quseeyaan ayaga waxa ka quseeya male dadka madaxda ah macnaha siyaasadoodii iyo dhibaatadoodii way ku wadaan dhibaatadooda dadka way ku wadaan marka waa in ayaga naftirkooda ay ka digtoonaadaan oo diinba ay war u mahayaan xadiidka nabiga calayhi salaatu salaam uu yidhi maa min cabdin yastarciihi allahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahuwa gaashin liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna xadiid cajiib la weeye addoon ma jiro oo ilaahay uu raaciyey oo madaxa ilaahay uu ka dhigay dad baa adiga madax aad u tahay oo gobol dhan ayaad maamulaysaa madaxtinimo ilaahay ku siiyey boqortooya ilaahay ku siiyey boqor baa tahay madax baa tahay marka dadkii adiga aad haysatay ayaad khiyaanaysaa خير جوجي usoo laabo
usoo laabo usoo laabo. marka waa yahay waxyar baa naga kala go-ay. marka maa min cabdin yastarciihi illah, addoon ma jiro oo ilaahay uu macnaha uu ka dhigay macnaha raaciye, raaci arraaci karaaci yarca xowla alxima soo maa. marka raacigu marka waxa waye waa qofka ilaalinaya oo ilaahay madax uga dhigay, ummad ilaahay uga dhigay, waa raaci waa raaci. dadkaas ayuu ilaalinaya, macnaha madax u yahay, oo hantidoodii ayuu ilaalinaya, nabadgelyadoodi ayuu ilaalinaya, oo aqoontoodii iyo wax walba ayuu u ilaalinaya. marka waa raaci waay, waa madaxweyne, waa boqor wey. markaysa diintu saasay u taqaanaa qofka raaciga ah. arraaci dadkan waxaa leeyahay raaciya leeyahay, arraaci waraciya fi islaax arraaci waraciya, kitaab laga qoray soo ma. markaysa marka haddii uu khiyaano ilaahay waa ka xarima jannada, ilahay waa ka xarima. maalinta ay dadkaas jannada ay gelayaan ilaahay janno gelin maayo qofkaas, mana siinayo. markaysa weliba waxay dembiyada dadkaas ay qaadeen iyo dhibaatooyinkii waxaasoo dusha ayaa laga saaraya wax walbaba. markaysa marka waa khatar wey. laakiin qofka wanaagsan haddii uu noqdo qofka madaxda hadduu noqdo qof caadil ah oo wanaagsan uu noqdo, oo ninkaas maxaa loo malaynaya dadka dhan asaa ugu horeeya maalinta qiyaama. dadka maaragtahay oo VIP da la fariisinayo kow asaa ka ah. markaysa sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh. alimaam alcaadil soma, imaamna waa la yidhaha mararka qaar, imaam alcaadil, qof caadil ah oo cadaalad u sameeyey dadkii mujtamaci uu hogaaminayay, oo cadaalad u sameeyey. markaysa marka qof waliba meesha uu markaas mas-uul ka yahay ayuu madax ka yahay soo ma. kan u sareeya, kan u hooseeya, wasaaradii, wasiirkii, wasiirka xogeenkii, markaysa kii booliiska, kii taliyihii ciidankii, waxaasoo dhanba. markaysa qofkii madaxba ah markaysa caadil u sameeya mujtamaca uu xakumayo, haddii qofkaas uu khiyaano uu ka baaqsado, dadka uusan khiyaanin, oo caadilnimo oo wax kasta u qasbo, oo wax wanaagsan u sameeyo, maalinta qiyaamaha kow asaa macnaha dadka meel wanaagsan fariisanayo, harsanayo uu kamid yahay. markaysa marka waan soo gabagabeynaya 15kii. waxaa ii dhiman 3 baa ii dhiman. waxaan u malaynayaa in callamanii ramadaan wuxuu baray markaysa dadka qeybahooda. marka dadka inay kala qeyba yihiin, waa kala nooc, waa kala anwaac waayo. yaa baaqiya alkhayri aqsir ayaa jira, waa baaqiya shari ayaa jira. yaa baaqiya alkhayri aqbil dheh, yaa baaqiya alkhayr aqbil, wayaa baaqiya shari aqsir. labaduba way jiraan. marka inuu iska joojiyaa fiicnaan lahayd. marka dadaan joojinayn baa jira, marka dadaan joojinayn oo weligoodba sharta iyo dhibaatada ka shaqeynaya ayaa jira, oo shaydaan baa xiran iyo ha xiraada iyuusan xiraanin, macnaha dadkii maaragtay dhibaato ku wada ayaa jira, walciyaadu billah. marka ramadaanku wuxuu baray ashukr. callamanii ramadaan ashukr, an ashkura allaha subxaana watacala, ilah inaan ku shukriyo. walacalakum tashkuruuna soo maa fii suurati macnaa albaqara, aayadaha oo ramadaanka, walacalakum tashkuruuna ayadda dhammaadkeeda soo maa. icmaluu aala daawuuda shukran waqaliilu min cibaadiya shakuur. war heer aala daawuudow sameeya shukri oo ilaahay ku shukriya. marka waqaliilu min cibaadiya shakuur, addoomaha ilaahay kuwa shukriya aad bay u yaryihin. shukriga marka waxa waaye in qalbiga oo qofka uu ka qirto ilaahay waxa uu sameeyey. qalbigaada waa in wax ilaahay ku siiyo dhan qalbiga waa inaad ka qiranta qalbigaada. qalbigu waxaa la yihahdaa qalbigu magaalo waa ka weyn. qalbigu magaalo waa ka weyn, magaalo dhan oo 1 milyan deganta waa ka weyn qalbigu. marka qalbigaada ilaahay waa inaad macnaha ka adeecsan tahay, oo qalbigaada uu yahay qalbi furan waa inuu yahay, oo qalbigaada ilaahay aad macnaha uga shukrinaysid. xataa carabka haddaadan ka dhihin, carabkiina ku dar, marka jawaarixdina ku dar. marka saddexdaas marka laysu keena ayaa shukri ayuu yahay. marka shukriga marka waxaa waye ictiraafan bilqalbi, markaysa wa iqraaran bilisaani, markaysa wa camalan biljawaarix. qofko qalbigana ka qira, markaysa oo cubuudiyadii iyo ilaahay iimaankii uu siiyey, islaamnimadii uu siiyey, caafimaadka ilaahay uu siiyey, barwaaqadii ilaahay uu siiyey, nicmadii ilaahay uu siiyey, dhan walba ilaahay ka siiyey. markaysa inuu qofku uu sidaas ula yimaado wey. carabkan uu ka qiro ashukru lilah, alxamdu lilah, washukru lilah. xamdiga shukrigu marka waa isku midna waa la yihahdaa, waa kala duwan yihiin waa la yihahdaa. waayahay marka xubnahaadana marka waa inaad marka xubnaha 360 xubnood oo qofku leeyahay waa inay kulligood shaakiriin yihiin. carabkii waa inuu shaakir yahay, waa inay ishii shaakir tahay, waa inay maskaxdii shaakir tahay,
waa ina lugti shaakir tahay ma arkaysa shukriga marka waa ilaahay shakuur waaye wuuna aqbalayaa wax yar hadaa la timaad ilaah ka aqbalaya qaliil wax yar hadaa la timaad ilaahay wuu kuu badinaya wa qaliilun min cibaadiya shakuur ma arkaysa kii aayaddaas markuu maqlo ma arkaysa cumar wuxuu dhihi jiray ma arkaysa qof aqrinaya uu maqlay ma arkaysa markaas wuxuu yiri kullun afqahu min cumar ayuu cumar ibn al-khattab waayo ma arkaysa allahumma ij'alni min al-qala'il ayuu ilaw qala'isha ilaw igu dar kuwa yar yar wa qaliil baaleer min cibaadi shakur way yaryihiin shakirinta way yaryihiin qaliil aleer qaliil marka kuwa yar allah nagu daro ayuu dhihi jiray cumar allah igu daro qaliil min cibaadi shakur marka tan 13aad waxa waaye oo ramadaanka uu nabaray waxa waaye farxad buu nabaray ramadaanka oo inaan faraxsanaano farxaaniin mabsuutiin inaan naqano kuwa faraxsan oo qalbiga iyo carabka iyo jirka iyo meelba ka faraxsan oo nabi madina alayhi salatu wasalam inna lisaa'imi farxatan marka qofka inuu faraxsan yahay waa dabeecad weey inuu faraxsan yahay oo san xanaaqsanayn marka qofka sooman wuu farxaya markaysa laba farxadna uu leeyahay labada farxado marka waxa weeye hadii uu afurayana wuu farxaya ama ha tabish markii dhamaato afur baa leeyahay ama habeen walba marka la afurayna afur waa leeyahay marka ilaahay la kulmana waa farxaya markaysa marka wujuhun yawma idin naadiratun ila rabbiha naadiratun wa wujuhun yawma idin basiratun sama marka aakhira marka la tago labadaas baa loo kala bixi markaysa dad faraxsan iyo dad faraxsanin daahikatun mustabshiratun wa wujuhun yawma idin 'alayha ghabaratun tarhaquha qataratun wa laba fariiqun fil janna wa fariiqun fis sa'ir wa anta kali dad faraxsan iyo dad marka aan faraxsanin markaysa marka cibaadada waa in lagu farxo cibaadada dhan ba waa in lagu farxo marka qofku farxad buu ka qaadanaya farxad markaysa marka cibaadada uu sameeynaayo qofku wuu ku farxaya abaal marintana wuu ku farxaya marka waa qofka imtixaanka ku jiro kale maanta ardada imtixaan ku jirto maanta oo kale oo dadaalkoodii way ku farxayaan natiijadana wuu ku farxaya markaysa ardada wuu ku farxaya natiijadana wuu ku farxaya dadaalkina wuu ku farxaya markii habeenkii uu kacay kulli marka sidoo kale tan 14aad waxa way 15kii laba ay dhiman Soomaa Ramadan markuu wuxuu barayaa an al-aakhirata khayrun wa abqa markaysa an al-aakhirata khayrun wa abqa iyo wal isti'daad markaysa li baab ar-rayyan in loo diyaar garoobo wufuud ilaahi wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumaran حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ثم سلام عليكم سلام قولا من رب الرحيم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين مركزا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مركزا باب الريان سديدي جنة سديدي الباب أنا يراهدو سديدي جنة أما سديد جنة ولا يراهد سديد الباب ولا يراهد مركز جنة والبنا ayada fariiq ka badato iska weyno macna waxay u baahan tahay jannooyinka markaas in dad cusub loo abuuro ay u baahan yihiin jannada ilaahay waa aad bay u weyntaa waa buuxin kara ma jiraan markaysa jannooyinka wax buuxin kara ma jiraan jannada ilaahay markaysa wax buuxin kara ma jiraan jannada qofka rabo inuu akhriyo jannada wax ku saabsan ka akhriyo kitaab la yiraahdo haadil arwaax ila bilad al afrah kitaabka sa akhriyo markaysa marka al-isti'daad li baab ar-rayyan markaysa dadka marka waa la wacaya markii la waco markaysa baab ar-rayyan baa laga wacaya dadkii soomana baab ar-rayyan baabkii dhirigta okanaashaha ayaa laga wacaya oo way soo oomeen way soo dhibaatoodeen way soo rafaadeen marka baab ar-rayyan ayaa ilaahay sharbatan la yadma'u ba'daha uusan oomeyn ma oomayo marka wacabo markaysa جنة مركز مرة لو قليو مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل المصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معام لا يستوون ما أكدت كاسمرك مركز قف باب الريان لقوا وعيه يقف جهنم لقوا وعيه ليلة أدخلوها إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا ماركيسا عجيب لا حول ولا قوة إلا بالله مركا
marka baabu rayaan ilaahay hanoo kaso. marka ana alaakhirata khayrun wa abqa, aakhira inay baaqi noqonayso oo ay baaqi noqonayso ma arkaysaa, oo adduunyada tan laga tegaya, adduunyaduna faani ay tahay ayaa ramadaankuna baraya. marka ramadaankii baabana barayaba, ramadaankii madrasadii iskuulkii madrasadii ayaabana baraysaba. waaya tan 15aad ugu dambeysa waxaa waye ramadaanku wuxuuna barayaa ilaahay inuu noo dhow yahay, ana allaha qariibun. ma arkaysaa, waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun, waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun. ilaahay wuu noo dhow yahay subxana watacaala. marka ilaahay maadaama uu noo dhow yahay waa inaan barino. baryada marka qofku waa ilaahay inuu baryo. kitaab hadda waxaa jira aan idiin sheegay dhowr mar oo xisnul muslim la yirahdo, ducooyin badan ay ku yaalaan. aadaab ducaa ayaa jirta, ilaahay in la baryo oo aamiinta la guro, oo guryihii laga duceysto, oo dadka ahlu khayrka kulli ay duceystaan. samadu waa furan tahay, ilaahayna wax walba wuu aqbalaya oo wanaaga. ma arkaysaa, oo ilaahay xaggiisa loola jeedo, ilaahay waa aqbalaya subxaana watacaala. ilahay waana aqbalaya. allahuma اغfir lana dunubana wasrafna fi amrina wathabit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin. ma arkaysaa, ilaahay marka wuu siinayaa qof kasta wuxuu weydiistay, ilahay wuu siinayaa. soo xadiid nabiga kuma dhihin ma arkaysaa xadiid alqudsi, ma arkaysaa xadiid qudsigii dheeraa oo dheeraa soo maahayn, walow qaamuu fi saciidin waaxidin. marka dadka dhan haddii meel intay isugu yimaadaan, malaaida aljin walinsu wakulli shay haddii meel intay isugu yimaadaan ilaahay ay baryaan subxaana watacaala, qof walibana ilaahay wuxuu rabo uu siiyo, ilaahay waxba ka nuqsaami maayaan. ilaahay wax ka nuqsaama ma jiraan. naxnu alfuqaraa wallahu huwa alghaniy, yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa wallahu huwa alghaniy alxamiid. naxnu alfuqaraa wallahu huwa alghaniy, ilaahay waa deeqtoonya, ilaahay waa hani. ma arkaysaa, wax walbana ilaahay waa haya subxaana watacaala, wax walba agtiisa, wax walba. marka ramadaanka wuxuuna barayaa ilaahay, ma arkaysaa, inuu noo dhow yahay oo aan barino. ma arkaysaa, ducadii la goro, allahuma inaka cafuun tuxibu alcafwa facfu cana. ilaahow adiga ayaa wax cafiya. ma arkaysaa, cafiga waa jecesha, ilaahuna cafi, ilaahuna caafi, ilaahuna cafi, ilaahu ehelka noo barakeey. rabbana hab lana min azwaajina waduriyatina qurata acyunin wajcalna lilmuttaqiina imaama. sooma. ma arkaysaa, ilaahay marka aman yujiibu lmudara idaa dacaa, marka qof kasta dhibaata haysato ilaahay wuu ka aqbalaya. marka macnaheedu marka loolama jeedo, dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan maadaama ilaahay aniga aan baryay, dee baryadii ma aanan helin. taas waa khalad weeye, khalad weyn waaye taas. ilaahay haddii aad bariday marna ma aadan khasaarin, xataa tif yar xataa ma aadan khasaarin, ciddi yar xataa ma aadan khasaarin. ma arkaysaa, marka dhowr shay ay mid tahay in ilaahay ma arkaysaa uu ku dib dhigay wax soo socdaan, inay ducadii ilaahay aad bariday inay soo socotaa laga yaabaa. ha sugu weyne. ma arkaysaa, khuliqa alinsaanu min cajalin. ma arkaysaa, khuliqa alinsaanu daciifan, bini aadamku waa iska daciif, waa degdeg badan yahay. ma arkaysaa, iyo in ilaahay wax kale kaaga qaadayo. ma arkaysaa, iyo dhibaato kale soo socota ilaahay inuu kaaga qaadayo ayaa laga yaabaa. dhibaato soo socota ilaahay inuu kaaga qaado, inay ku kaydsan tahay. ma arkaysaa, waxyaalahaas baa laga yaabaa. marka marna ha isdhihin ilaahay kaama aqbalin. ilaahay asiga ayaa yiri hala ii baryo waan idinka aqbalaya. waidaa sa'alaka cibaadii fainii qariib. marka ducada waxaa la rabaa inay ikhlaas tahay, inay tadaruc leedahay. ma arkaysaa, mutadarica tahay, khushuucsan tahay, ilaahay gacmaha u horeysanaysa. marka gacmaha marka ilaahay la baryayo sidee ilaahay loo baryaa? ilaahay sidee loo baryaa? aadaab loo baryaa jirta. qofku inuu weyse qabo, ma arkaysaa, qiblada u jeesto, ilaahay qiblada ma u jeestid, xawaaijta ilaahay inaad macnaha aad ilaahay hor dhigtid, wax alla waxay yihiin, ha yaraato ha badato. ma arkaysaa, ilaahay inaad hor dhigtid. marka ducooyinka saan waa la yiraahdaa, saan waa la yiraahdaa, saan waa la yiraahdaa, saan waa la yiraahdaa. marka way kala duwan yihiin, way kala duwan yihiin. marka sidaan waa la yiraahdaa. marka waliba dad waxaa jira saan dhahay marka ilaahay toogeen macnaha ilaahay subxaana watacaala qof aad lacag ka rabto miyuu ka liitaa? walciyaadu billah. markaysaa qof markaa wax ka rabtid waa inaad tirahdaa ma arkaysaa oda hebelow
macnaha ninkii adeero sida marka qofka marka wax ka rabtid waa inaad amaanto soo maha ilahay horta amaan ilaahay amaan ma arkaysaa inaad baahi qabtidna tilmaan laakiin dadka qaar waxaa laga yaabaa ilahay markay baryayaan waxay u baryaan qof dhergan oo kaleeto ama isii ma arkaysaa ama idiid ilahay waa ama isii ama idiid inay tahay laga yaabaa laakiin tadaruc iyo ma jiro marka ilahay u tadaruc ilaahay bari ilaahay amaan ma arkaysaa marka hore ilaahay khazanadiis ilaahay waa buuxaan ilaahu haddaad wax siisid ma arkaysaa oo adiga aad siisid wax kaaga nuqsaanaya ma jiraan ama carabi ha ahaato ama soomaali ha ahaato ama ingiliish ha ahaato ama swedish ha ahaato ilaahay luqad walba ilaahay waa yaqaanaa ma arkaysaa dadka dhanna ma arkaysa dadka dhanna hadday wada tuugaan adiga unbaa ilaahay subxaana wa tacaala adiga ayuu ilaahay ku ogyahay qof waliban ilaahay waa ogyahay dadka ilaahay isagama qasna ma arkaysaa luqaduhu ilaahay isagama qasna ma arkaysaa waaya marka qofku wuxuu ilaahay ka baryayna waa inuu ogyahay waa ilaahay maxaa ka baryay marka waxaa laga yaabaa ramadaanka ducooyin fara badan baa masaajidda laga akhriyaa oo taraawiixda lagu akhriyaa imaamyada waxaa wanaagsan inay iska soo koobaan oo iska soo yareeyaan baa wanaagsan oo duca oo la fahmi karo dadka uu tuugaan laakiin duca hadda kahor xaramka laga akhriyey iyo duco oo sheekh cabdi akhriyey iyo duca sheekh maxamuud akhriyey iyo maxaa kaa gala qofka imaamka waxaa la rabaa duca la fahmi karo dadka inay ugu ducey dadkan carab maahan dadkan soomaali waaye ma arkaysaa dadkii horaa ka fiicnaayo soomaali dadka ugu ducey jireen dadka af soomaali ugu duceyn jireen waxay fahmayaan ugu ducey jireen inta carabiga taqaana carabiga loogu duceeyo marka dadka kalena ha laga soo koobo oo yaan faraha laga badinin ducadan tirada badan ma arkaysaa oo sheekh jibriil akhriyo oo sudaysiya akhriyo kada fulaan akhriyo waxaas ma marka ducada waxaa la diidaya inay noqoto sajci tahay oo macnaha mid oo sajciga waxaa waaye mid sida gabayga u taala u qaabaysan inay noqoto ayaa la diidaya marka ducada duca wanaagsan inay noqoto ayaa la rabaa اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ودعوين dadku ay yaraa iska fahmi karaan markaysa وجزاكم الله خيرا marka ilaahay ana aqbalo subhanahu wa ta'ala ilaahay dambigeena ilaahay dhaafo وجزاكم الله خيرا marka ramadaanku marka waxa waa madrasa kaamila waa madrasatun kaamila marka waxyaalo badan baa ramadaanka laga faa'iidi karaa oo laga fahmi karaa marka جزاكم الله خيرا inta iyo nabadgelyo Allah naga aqbalo ilaahay dambigeena ha dhaafo ilaahay naxariistiisa ilaahay hana siiyo wixii macnaha oo khalada oo naga dhacay oo intaan hadlaynay ilaahay macnaha uu matalagelin ilaahay naga cafiyo wixii khayra oo aan la nimidna ilaahay ummadda ilaahay ha u barakeeyo ilaahayna u anfaco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.